maamuladan hadda aan soo tirnay sida lixda gobol Jubbaland Shabeelle State kuwii kala oo raba inay hadda sameystaan waxa leedahay kuwii hore u jireen waxa lagu sameeyo waa sharci daro jidka saxda marka oo la soo maro muxuu yahay goboladii raba inay sameystaan maamul goboleed jidka saxa waa mid anaga hadda ikhtiraacayna fikirayna ma jidka saxa waxa tilmaamaya dastuurka waxa tilmaamaya shuruucda baarlamaanku uu dejiyay lagu gaarayo maamul goboleed haddaan si kooban u sharaxo waxa weeye siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta markan waa xildhibaanada ayaa inti ishaleelo heer deegaan degmadii tago ayay waxay xulayaan 100 ama 150 hadba degmada nooca ay tahay degmadu ay tahay degma gobolka magaalada madaxda gobolka ah 150 erga ay xulayaan haddii ay magaalo kale oo degmo kale oo caadi tahay 100 erga ay xulayaan ergadaas waxay sameynayaan muxuu ahaa guddi deegaan ee degmadu leedahay council oo 21 ama 27 ah hadba degmada haday tahay magaalo madax iyo haday degmo caadi tahay 21 kaas muxuu ahaa councilka waxay iska dooranayaan gudoomiyahaas wuxuu bedelayaa gudoomiyaha degmada ee hadda aan naqaano ee ku meel gaarka ah gudoomiyahaas degmada iyo 3 qof oo kale oo councilka kamida waxay u dalacayaan muxuu ahaa u gudbayaan heer gobol marka degmooyinka afartay soo direen waxay noqonayaan councilka gobolka councilkaas gobolka wuxuu iska dooranayaa gudoomiyahaas wuxuu bedelayaa governorka hadda aan naqaano oo mataqaanaa gudoomiyaha gobolka ee ku meel gaarka ayuu bedelayaa gudoomiyahaas asagoo liid gareynayo councilkii gobolka wuxuu la macaamilayaa gobol kale oo sidaas oo kale ku yimid markaas waxay wada sameysanayaan state marka hawshaas dhacayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo mataqaanaa guddigii madaxa banaanaa ee muxuu ahaa federaalka iyo xuduudada ayaa dhex fadhinayo marka ay ku heshiiyaan inay midoobeen oo ay la baxeen state la yiraahdo hebel oo dastuurka noocaasa leh oo dastuurkaas uusan khilaafaynin dastuurkii federaalka ayaa waxaa la diyaarinayaa sharci baarlamaanka la horgeynayo wasaaraddu iyo guddigaas madaxa bannaan isla diyaarinayaan wasaaradda ayaa geyn doonto baarlamaanka hortiisa baarlamaankaas wuu ansixin doonaa markaas wuxuu dhihi doonaa gobolkii hebel iyo hebel ahaa labadaas gobol ama saddexdaas gobol waa midoobeen waxay la baxeen magacaas waxay leeyihiin dastuurkaas laga bilaabo waqtigaas arrintaas waxay u gudbi doontaa madaxweynaha markuu saxiixo state baa jiro dariiqu la maraayo oo sharciga waa dariiqaas haddii marka niman siyaasiyiin intay baxaan odayaal dhaqameed meel geystaan oo intii raashin la siiyo ay yiraahdaan madaxweynaha ka soo baxay dabcan adduunyada dhan way aragtaa inaysan waxaas sharciyad lahayn laga yaabaa aakhirka inay xitaa saas noqoto maxaa yeelay waddankeenu noocu u jaban yahay ayaa loo kabaa